iyadoo deegaanada Soomaaliland oo ay dad xilligan ka socdaan ololaha doorashada madaxtinimada ayaa magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu taageerayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaana kulankaas ka soo qayb galay xubno kala gedisan oo taageero ah xisbiga wadani uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro waxayna sheegeen in xilligan ay si weyn u taageerayaan hogaamiyaha xisbiga wadani isla markaana uu guul weyn ka soo heli karo doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland dadkan oo taageero u muujiyay Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxay sheegeen in ay ku taageersan yihiin arrimo ay kamid yihiin inuu ka shaqeyn karo midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland أنا اللي أبغى أدفع على أكون مجال مقدسه واحد تاجر سنة عبد الرحمن عر ما دام وحقبكر وحقبشه ودن وحقبكر ما دام تي إربرة أنا دولتان نكاس عبد الرحمن عر محاكو تاجر إنه دلك وحقبكر نكاس ونود عليه كر ومن ماذا حاجات كر من ماذا صومالي انتظر تاجر عبد الرحمن waxaan ku bilaabayaa magacayga Cabdullaahi Ciise Xarisow oo ku nool dadka reer Muqdisho ku nool kamid ah waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Ciro sababtoo ah doodii ugu dambeysay waxaan ka dareynaa baan ka dhigsan karnaa inuu yahay shakhsi isu keeni kara Soomaali oo ka shaqeyn kara midnimada wadda Soomaaliyeed marka dadka Soomaaliland ku nool waxaan ugu baaqayaa inay codkooda siiyaan si agarraana Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani أنا وإسحاق علي لوله وحن تاجرسنا اسمان عرو عبد الرحمن عرو وكنت تاجرسنا ودنك ذلك إنك وحقوق بكره إنه يهي صوماليا وجوده وتركيسه إنه يهي من وما أنت أدي هذا حقوق بكره ذاتك سكيني كره ما أنت وعن جعلها إن أنا أصير سفيع وتاجر وليان وتاجر يجري حد ما تاجر سنة تاجر أو وناكسن وليان تاجر يجري وقلبي إنه كويس يجري أنا هاي حد ما أدري أبغى تاجر سنة وليان وتاجر سنة كرا. نقول مجاعي رحمة محمد مقدشة وكنولها وحن تاجر سنة هاي عبد الرحمن عرة وحن كتاجر مدن الصومالية إنه deegaanada Soomaaliland waxaa ka soconaya ololaha doorashada waxaana xilligan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala gedisan ee Soomaaliland ka kooban tahay in xisbiyada ka dhisan Soomaaliland ay wadaan olole ku aadan doorashada Soomaaliland Maxamed Xuseen Axmed Bulsho TV magaalada Muqdisho